السلام عليكم waa doctor Mawlid ku daro dhamaantiin bidi salaamay idin la ku soo dhawaad cashar ku saabsan xanuunkan la yiraahdo acromegaly marka acromegaligu maxaa yahay acromegaligu waxa weeye waa xanuun ka tirsan xanuunada endocrinology-ga lagu barto waana mid ay weynaanayaan qofka qaarka sare iyo qaarka hoose marka waxa ka dhigantay gacmaha wejiga marka qofka gacmaha weynaanaya marka hadduu qofka caadiga kan yahay san u samaysan yahay marka hore haddii xanuunkan ku dhaco qofku waxa uu noqonayaa qof wejigiisu weynaado soo kalena daanka hoose uu aada u weynaado lugihiisa iyo gacmihiisa sidoo kale way waaweynaanayaan saasaa loogu bixiyey marka acro waxaa la yidhahdaa greega luuqadda greega waxa weeyaan waxaa leeyahay extremities ama waxyaha kuwa sare iyo kuwa hooseba way waaweynaanayaan megeli waa weynaan marka waa taas si kooban marka hadda maxaa keeni waxaa keena hormoonka la yidhaahdo hormoonka koritaanka ama growth hormone sidoo kale loo yaqaano somatotropin la yidhaahdo ayaa si xadaafa loo soo daynaya yaa soo daynaya marka waxaa soo daynaya soo bax ka soo baxaya qanjirka pituitary-ga la yidhaahdo marka caadiga haddaynu nimaadno hormoonkan halkee laga soo daynaya hormoonkan horta waxaa laga soo daayaa hormoon kale oo carinaya soo dayntiisa hypothalamuska qaar ahaan bu'da loo yaqaano bu'da qaansada ama arcoid nucleus la yidhaahdo markaasi qaansanaysan bay u samaysan tahay waxaana la yidhahdaa growth hormone releasing hormone waa hormoonka soo daaya hormoonka koritaanka marka kaasi wuu carinaya marka laga soo daaya wuxuu soo raacaya halkan waxaanu imanaya unugyadan markay caadiga yihiin weeyaan kan waa soo bixi baa halkan ku sawiray markay caadiga yihiin kuwan imanaya haye waxa uu leeyahay marka maxaa yaga la yidhahdaa somatotrof baa la yidhahdaa unugyadaas ayaa waxa uu ku carinaya inay soo daayaan growth hormoonka leeyahay waa amar buslinaya soo daaya hormoonkii koritaanka buu leeyahay taasoo marka caadiga ah sidoo kale marka caadiga ah haddaba si tan loo joojiyo waxa sidoo kale qaybtan la yidhahdo periventricular nucleus-ka ama bu-aha caloosha agteeda marka ventriculus waxaa weeyaan maskaxda qayb dhowr qaybood oo ventriculus bay leedahay markaas kuwaas bu-ahaasba iyaguna soo daynaya hormoon kale oo la yidhaahdo oo kale waa hormoonkii hadduu carin ahaa ka kale waxa weeyaan hormoon joojiye ah oo la yidhahdo somatostatin marka maxaa ugu imanaya unugyadii growth hormoonka soo daynaya ama hormoonka koritaanka soo daynayay ayuu ku oranaya jooji soo daynteeda waxaanu ku oranaya markaa waa marka uu hormoonkan farabato tusaale growth hormoonka soo daaya sooma waxa uu tegayaa beerka waxa uu bedelaa hormoon kale oo la yidhaahdo waxaa la yidhahdaa insulin like growth factor 1 kaas baa marka uu dhiigga soo galo dib waxa uu siinayaa qaybta soo daysa amarka soo siisa fariin ah hormoonku waa batay hala joojiyo soo dayntiisa marka watan negative ku qoray marka waa kaas mar kalena waxa uu samaynayaa isla kani marka uu farabato ayuu dib wuxa ugu dirayaa fariin kale qaybtii joojinta ahayd taas carinta hadday tii joojinteena wuxuu dirayaa wuxuu ku leeyahay joojiya roblas water joojiya buu leeyahay marka waxaa la kordhinayaa somatostatinta ayay kordhinaya saasaa marka ay ku joojinayaan marka dhowrkaa qayboodba hoos waana loo korba ugu daleecmi karaa soo dayntiisu sidoo kale joojintiisa nidaamkaas baa loo sameeyey oo ku socda haddaba markaas marka caadiga markan haddaba ay xanuunkani jiro acromegaliga ee ay keenayso soo baxa amoral pituitary adenoma soo baxay waxaa la soo daynayaa hormoonkii oo xadaaf waxa kale oo keeni kara keliya soo baxaas ma waxa kale oo keeni kara waxaa la yidhaahdo men 1 syndrome oo ka dhigan multiple waxaa la yidhahdaa multiple endocrine
neoplasia oo waxa weeyaan soo baxyo kale oo fara badan oo ka baxsanba hataa halkan aan ahayn oo jidhka ah oo si genetic ay ku iman kara ama dhaxalnimo ahba ku yimaadaan syndrome-kaasi ayaa isaguna keeni kara in ay hormoonkan marka waxay soo deynayaan waa kuwan oo kale waxay soo deynayaan hormoonkii koritaanka bay soo deynayaan sidoo kale waxaa soo deyn kara mixed waxa weeyaan lactotroph ama somatotrophs adenomas oo waxay ka dhigan tahay xanuunkii hore soo marnay waxaa keenaya wuxuu ahaa hyperprolactinemiyada waxaa keenaya lactotrophiska ayaa keenayay oo kasoo baxay soo baxaas sida kana waxaa keenaya somatotrophiska marka waxay ka dhigan tahay soo baxyo labadoo isku dhafan somatotrophiska iyo lactotrophiska soo baxyo ku yimid oo labadoo ay soo saareen baa keeni kara sidoo kale oo ka dhigan labadoo saameynaya sidoo kale waxaa keeni kara dawooyin oo markaa iatrogenic waxa la yidhahdo waa waxay dawo keena oo dee haddii si toosa loo qaato qofka dadka kuwa ciyaaraha iyo kuwaasa badan qaata si murqahooda ay u koraan garoodka hormoonka ayay qaadan karaan marka taasina waa keeni karta marka taasina waa waxyaalihii keeni haddaba marka uu haddaba kor u kaco waa kan hormoonkii koritaanka ama garoodka hormoonka la oran jiray marka uu hor u kaco waa inaga midho waxa u tegaya beerka waxa u bedelaa mid waxaa la yidhahdaa insulin like growth factor ama growth factorka insulinta u eg marka muxuu samaynaya waxa uu ka imanayaa dhiig u soo gelaya waxa aanu tegayaa xubnaha tusaale hadduu murqaha tago waxa uu keenaya inuu murquhu koraan si dhaqsaa u koraan ayuu keenaya dhankan haddii wadnaha maaragtay xaggiisa tago wadnahana murqihii ku koobaya soo maa murqahaasna waxaa ku koobaya hypertrophy buu keenaya oo gaar ahaan waxaa la yidhahdo left ventricular hypertrophy buu ku keeni karaa anaga halka calaamadaha kaga sheekeyn doona sidoo kale waxaa ku keeni kara oo ka dhigan lafta ventriculka waa qaybtan marka wadnuhu wuxuu ku leeyahay labada ventricular iyo labada atrium marka qaybtan ayaa uu weynaysiin karaa oo aada weynaysiinaya marka kuwaasa fara badanaya taas hadday dhacdana maxay keenaysaa waxa kale keeni karaysaa ischemic heart disease bay keeni kartaa ama oo ka dhigan xanuunada oxygenta la siinayo qaybtan ay hoos u dhacdo leetaan china hadday tahay myocardial fraction haddii ay tani sii badato bay keeni kartaa sidoo kale waxa uu keeni karaa hypertrophic cardiomyopathy xanuunka le marka taasi waa haddii ay u nimaadna lafaha muxuu ku keenayaa IGF-1 waxaa ku keenayaa lafaha inay koritaan sameeyaan oo markaa gaar ahaan waa marka ay way ballaartan way kori karaan way soo noqon karaan xadgudubada badanaya oo waa inaga qayro calaamadaha kaga sheekeynay hypertrophic arthropathiga waxa la yidhaahdo marka uu qofku yar yahayna waa in la kala saara weeyaanoo ma garanaysaa waxaa jira waxa la yidhahda gigantism ayaa jiro dadka dhaadheeraada soo mid arag waa marka qofkii weynaaday wey oo koritaankiisa joogtay saasuu markaa lafaha kale u weynaanaya laakiin marka uu laftaaqan ay ku sawiran marka waxa wey taas waxa ahayd carjawada ayaa halkan maaragtay saameyn ku yeelanaya tan lafteeda qaybahan baa jira maaragtay marka qofku korayo qaybta ka qayb qaadata inay kasii kala baxdo korodho ayuu kordhinteeda ka qayb qaadanayaayo haddii uu ciladan ku timaado qof yar waxa uu keeni karaa xanuun raad gigantiisan waana dadka dhaadheer inab sidoo kale haddaad garanaysa soomaalida dadka u dheer iyo dadka adduunka u dheerba dadka dhaadheer dee caadi maaha koritaanka noocaas markaa laakiin waa yaraanta qofkaas oo uu yaraanta ku imaado markaasu dheeranaya ilaa xadheeraanaya markaa taasi waa taasoo gigantiisanka weeye laakiin ma arka migelkaas aynu soo soconno marka uu yimaado haddaba markaas iyada qaybtaas waxa ah kaasi waa kaas leh garood hormoonka laftiisu isaga laftiisu hadduu si toos unugyada u gaadho waxaaday xubnaha kale jirka u gaadho waxa uu keeni karaa inuu ku keeno waxa la yidhahdo polyps oo kasoo baxay soo baxyo ayaa sanoo kale ah saasoo kale weeyaan oo kasoo baxaya large statank sidoo kalena large statank wuu dheeraanayaa intii hore uu ka dheeraanaya oo waxyaabaha keenaya maaragtay calool istaaga ayuu ka mid dheeraanayaa sidoo kalena polyps waxa la yidhahdo kasoo baxaya
colon volvus dhanka haddii growth hormonekii gaadho unugyada adipose tissue-ka ahayd dee baruurta qofku uu leeyahay wuxuu keeni karaya lipolysis buu keeni karaa ayuu keeni karaya oo ah burburinta lipolysis burburinta maxaaday adipose tissue-ga saa daraadeed bay jirkay keenaysaa saa daraadeed waxa kor u qaadmaya maaragtay lipka xagga beerka markale hadduu tago taas waxay soo saaridii uu soo saarayay hormoonka kale laakiin markan muxuu ku keeni karaya waxa ku keenaya hormoonkani waxa la yidhaahdo glyconeogenesis ay ku keeni karayaan oo waxa uu ka dhigan tahay galeenka jintii lagu maaragtay kaydiyey ayaa la burburinaya ayoo glucose baa laga soo dhigaya saa daraadeed glucoseta jirka dhiig ay kor kicinaya saa daraadeed waa xanuunkan waa in la kala saaro lagu sameeyo differential diagnosis sidoo kale hay'adda diabeteska oo qofkii hadduu kani hayo oo ku yimaado aad baadho ood glucose sarreysa aragto wax laga yaabo qaadato inuu diabetes mellitus type 2 uu hayo maadaama uu xanuunkani badan ay yimaado dadka waaweyn 40-ka wixii ka sarreeya meelahaas u yimaado marka loo gaaro markaas taasina waa taas haddaba aynu u galna dhanka calaamadaha haddaynu sii wadno waxa uu keeni karayaa qofka ku keenaya waxa la yidhaahdo haddii dee dhanka madaxa ay kasoo qaadnay xagga iyo pituitary-ga soo baxaasi waxaa ku keenaya madax xanuun headache ku keenaya ama waxaa la yidhahdo temporal hemorrhagia oo inaga hore uga sheekeynay waa in qofku maadaama halka soo baxi bartan ku beegay mugti bartaas haddii halka ku beegay kasoo baxo waa maadaama noqonay macro ayuu noqdaa mugti adenomas noocani waa macro haddii uu hyperparathyroidismkii mikra iyo makra halkani mar walba badanaa wuxuu badan yahay inuu soo bax weyn yahay saa daraadeed qofkii nerviskana la cadaadismaya saa daraadeed wuxuu dareemaya madax xanuun sidoo kale araggii meesha marayay wuxuu ku keenayaa inuu qofku dhankaas labada dhinac waxba ka arki waayo laakiin inta dhexe wax ka arko wanaa qoray labadii ilood dhankaas ma kama arkayo dhankana ka arkaya haddaynu ku socono waxaa kala keeni karaya waxaa lagu arkayaa double visionkii baa imanaya sidoo kale qofku waxa uu yeelanaya calaamadaha inuu gidid badan yeesho ama hyperhidrosis qofku yeesho sidoo kale wejiga uu isbedelaya anaga sawirka halkan ku sawiran taariikhsin wejigiisu qaabkiisu isbedelayo gaar ahaan daanka madaxa sare maaragta dhammaantood qofku si kale u ekaanaya shirkiisu isbedelaya laakiin waqti qaadanaysa lafteeda waxaa kaloo ka mid ah in maaragtay sidoo kale ay dhici karto hyperproductinemiyada lafteeda maadaama uu kani cadaadinayo qaybaha kale uu ku samayn karo sidoo kale inay soo saaraan productin lactotrophska haddii uu kusii fido waaga okay sidoo kale lafaha wuxuu ku keenayaa waa nabi sheegnay lafaha qofka maaragtay waaweynaanaya meelahan oo kale lafaha inuu weynaado inuu ku keeni karo waxaa ku keeni kara osteoarthritis baa ku iman kara xanuunkaas laftiisu osteoporosna waa ku iman karaa gaar ahaan waxa weeyaan haddii uu maaragtay keeno hypopituitarism keeno oo ah LH iyo FSH haddii kuwaas hoos ay u dhigmaan oo maaragtay gonadotrophiska haddii ay soo saari waayaan hormoonada taasi waxay ku keeni kartaa qofkii inuu ku dhaco maaragtay osteoarthritis laftiisa oo unugyadii lafaha ay aada u yaraadaan markaa waxaa ku dhaca kibosis ku dhici kara in qofku maaragtay lafka dhabarto qof soo qalabsanto ku dhici karta qofku calaamadahaas oo kale waxaan ka wada u yeelanaya calaamadahaas waa inagii soo sheegnay left ventricular hypertrophy baa imanaya oo wadnaha ah hypertrophic cardiomyopathy xanuunadaas oo qofku ku iman kara ilaa marka daba qofku uu gaadho heart failure wadnaha inuu talax galo wadnuhu qofka shaqadiisi qabo waxaa ku iman kara qof waxaa sleep apnea gaar ahaan qof markuu seexda inuu ku yaraato maaragtay naqasku
qabat inuu yeesho waxaa weynaanaya waxaa imanaya qofku wuxuu yeelanaya calool istaag sidoo kale maadaama uu sababta waxaa weeyaan inuu mandheerka weyni aada u dheeraanayo ama weynaanayo waxaa ku imanaya dhanka hadday maarata eegno xagga glucose waxaa imanaya imperial glucose tolerance baa ku imanaya imperial glucose tolerance maadaama uu kor loo qaadayo ninka soo sheegnay glucose jirka ka kacaysa haddana insulin badan baa lasoo deynaya marka qof waxaa ku iman kara stage 2 oo markaa insulin resistance inay dhacdo waa suurtagal dhacaysaa qofku waxaa bedelaya codkiisa cod weyn buu yeelanaya maadaama uu qofku rag iyo dumarku waxay kale cod weyn lafteedu waxa weeyaan maaragtay vocal cord ayaa ragga maaragtay ka weyn ka dumarka markuu qofku xanuunkan oo kale hayda meel kasta qofka weynaanaysa wuxuu wiil jirkoo dhan baa maaragtay weynaanaya oo organomegaly baa qofku wata ku dhacaysa saa daraaddeed buu qofku beachka maaragtay kusoo saaray codka ayaa aada weynaanaya codkiisa ku weynaanaya walad ragga cod weyn laakiin qofku cod nooc kale sii noqonaya okay waxaa ku iman kara qofka galacturiya soo kale qofka xanuunkan qaba oo haddii weeyaan ay calaamadihii ay soo baxaan hyperprolactinemia waxa weeyaan inuu naasab lagu arka laftiisa organomegaly organada dhan waa weynaan kara sida beerka keliyaha dhammaantood waxaa kaloo jira maaragtay qofka carpal tunnel syndrome xanuun la yidhaahdo oo ka dareemayo qofka halkan maadaama cadaadis ku imanaya nerfiska nerfyada halka maraya wuxuu dareemaya qofka gubiyo iyo xanuun gacanta qofka kama dambaysa marka sidoo kale lagu arkaya calaamado nafsi ah iyaguna abadkii qofka inaan waxba qaban karin ama emotion moodkiisu aada hooseeya lagu yahay noloshiisa oo kalena maaragtay aad ay ugu noqonaysa mid aan guul badan aan qofku gaarin cilado badan maadaama ay ku imanayaan nafsi ah haddaynu kusii soconno xagga baaritaanka de waa laba mid baa lagu samayn karaa waa in la sameeyo hormoonkan IGF 1ka la yidhaahdo ama insulin like growth factor 1ka in la baaro saa daraaddeed marka uu caadiga yahay marka waana taqaano kabacdi inta hadday hadduu kor uga kaco marka ayaa iyadoo loo eegay age-ka ama da-da qofka gaar ahaan 16 ilaa 24 ka dhaxaysa waxa uu gaadhaa waxaan yaraanta usoo qaadi weynay kaasi markaa gigantism moogtay qof markuu yar yahay inta badan meelaha 40 ayuun baa dee lagu arka xanuunkan oo iyaguna waxa weeyaan 90 ilaa 360 nanogram per milliliter weeye markuu intaa da-da yahay hadduu da-du ka weyn yahay 55 waa 70 inta udhaxaysa 290 nanogram per milliliter weeye haddii dhanka growth hormonka laftiisana eegnana waxa weeyaan wixii ragga waa in ku hooseeya 5 nanogram per milliliter dumarkana waa in ku hooseeyo 10 marka waxa ka dhigan intaa ka sarreeya inuu noqonayo qofka inuu hayo xanuunka gaar ahaan maxaa lagu sameeyaa wata markaan ku gelina lab testiga concentrationkiisa waa inaad eegto maaragtay F1ka haddii kan la rabo in la ogaadana haddii kaasi maaragtay dee uu si fiican u saari waayo wax lagu ogaawaya waxaad samaynaysaa kan saad u ogaato waa inaad qofka siiso oral glucose tolerance test waxa la yidhahdo OGTT waxay ka dhigan tahay 75 gram oo waxaad siinaysaa sokora ayaa la siinaya qofkii 2 saacadood kabacdi baa la eegaya marka haddii ay ka sarreyso ka sara marto intan dee waxay ka dhigantay qofka inuu hayo xanuunkan dhanka kale haddii dhankan maaragtay mar la arko inay badan tahay sida daradeedna la arko marrabo bal xagga kale inay dhibaatada la ogaado xagga pituitary glanka ama maskaxda ah dee waxaa la sameynaya waa in dee computer lagu eego maxaana loo isticmaalaa MRI ayaa ugu badan computer tomography sidoo kale waa lagu eegi karaa ECG-ga iyo cardiogramka maxaa loo sameynaya waa in dhanka wadnaha la eego haddii qofka maadaama nidhi cardiomyopathy waxaa ku imanaysa hypertrophic cardiomyopathy waa in la eego ECG-ga calaamadihii angina pectoris jirta ST depressionka ama kuwii haddii ay tahay bay calaamadihii kale ee myocardial infarction qofku ku iman karin waayo sabab waxay u badan dadkan u dhintaan waa xagga wadnaha wey oo ah ST depressionkii haddii myocardial infarction tahay echocardiogramka waxaa la eeganayaa waxa lagu ogaanayaa qaabka wadnaha ugu samaysan yahay miyaa maaragtay falfiskii kala baxeen siday yihiin ma waxbaa ka siiya lafteeda atriumta lafteeda sidoo kale waxaa la samayn karaa maadaama dhinac xanuuno sidoo kale waxaa keeni kara xagga hidaha la xidhiidha genetic testing baa la samayn karaa waxyaabaha lagu kala saaray xanuunada ay tahay la kala saaray waa hyperprolactinemia
iyo kan in qofka la kala saaro dhaqtar kala saaro weeye min one syndrome-ka kala yidhaahdo hypopituitarism-ka iyo gigantism-ka laftiisa kaana sidoo kalena gigantism wanaga soo sheegnay waa marka yaryariga qofku waa markuu korayo inuu xaddaaf u koro maadaama hormoonkani aada sarreeyo taasina waa taas waa xanuunadaas weeya kuwa in la kala saaro dhanka daweynta maadaama halkaa kusoo sheegnay waxaa la yidhahdo maxay somatostatintu inay xitaa joojinayso soo saaritaanka hormoonka waxaa la adeegsanaya dawooyin taasoo kale lamid waxaa la yidhahdaa horta ayaanan dawooyinka ku horreynay surgery-ga ahaa ayaan ay tahay inaan ku horreeyo oo isaga ah number one waxa weeyaan ka loo doortay in lagu daweeyo waa in maadaamay adenoomahani ay tahay mid aada u weyn waa in laga jaro taasaa loo doortaa number one yahay number two-ga ayaa ah maarata intaas caaweyda qofkii ay soo noqoto in sidoo kale dawo la siiyo waxaa la siinayaa hormoonka aan soo sheegnay ahayd joojinta inuu ka qayb qaato joojinta soo saaritaanka hormoonka kuwa eeg oo dasame ah waxaa la yidhahdaa somatostatin analogies ama SSAS baa la yidhahdaa maxaa ka mid a octreotide baa ka mid a ama lanreotide labadaa dawo ayaa u shaqeeya sida somatostatinta okay marka maxaa la siinaya waa ninka halkaa ku qoran waa arkaysaan waxaa la siinaya 20 miligram waxa weeyaan dhanka dawada hadduu dee qofku doonayo inuu ogaado ayaa inta lagu sii daraa waxa weeye 20 miligram weeyaan oo maxay intramuscular injection ama muruqyada laga mudayo qofka la siinaya hal baa la siinaya marka hal jeer waa hal mar baa bisha ay tahay haddii sidoo kale inta ma 3 bilood qofka ay wuxuu caawin weydo marka waa la kordhin karaa ilaa 30 miligram baa laga dhigi karayaa dhanka kale lanreotide-ka haddaynu eegno iyada waa maxay waa 60 ilaa 120 miligram weeyaan iyada xaggee laga siinaya waa subcutaneous-ka weeyaan subcutaneous-ka laga siinaya maaha intermuscular warkaas waa taas sidoo kale waxaa ay aada wanaagsantahay marka la siiyo 6 ilaa 8 week-ba mar sidoo kale waxaa la siin karaa qofkan oo kale dopamine agonist waa casharkii hore hyperprolactinemia sida u shaqeynaya iyaga laftooda way ka caawinayaan inay joojiyaan soo saaritaanka badan oo waa loogu dari karaa cabergolinta wata la yidhaahdo okay intaas haddii wax u qowliyo qofka doorashada dooqa kale qofku haysta waa radioactive therapy weeyaan in loo sameeyo oo lagu daweeyo lana badbaadiyo unugyada soo baxay waa haddii dawada iyo qalliinku ay qofku wuxuu taribaya marka halkaasin kusoo koobaynaa maanta casharkan isaga ah la socod wanaagsan casharada kale aan kaga hadlayno endocrinology-ga u sii gudbi bulshada inteeda kale kor waaye waa wada indhawaadey marka saad ila socoto waad garanaysaa waxay tahay asalaamu calaykum